السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي ذا الله يقبر بقرتويو وإذا الدنبي وحان كو أركيني انتي سوشيال ميديا لو مشغول سنة دقالكي شرم بوي داهر على سوق لأن يركلو الصوب بحضي ودقن حماد وحن فافينيسا كروغا لا حنجو فانكانا كافر بس أنا وما أنتو وحان ليهاي keep going صوبتا keep going وليهاي يا واحد كدنبي إنا keep going دهو لما إن شاء الله برامج كان كشرحي دونا هدي أنا قول صوبتا هاي سبسكرايب تو ديري جرين لايك تو عدسي كومنتينا فكر كان نقول وداقيسه وشو هذا برامج كوفا فاصل وقتها واحد جرتا فيديو عن صوري جمال لو تيك توك جيجا وين كجاه اللي نقن حمو ولا يرى بلابين ويقدم بيسي وضد بدن أي قسم مش شنقريان ويدهن والوزير أرنتا كسو هذا وأنا كسو هذا لكن قابك ضدك يفليين وهي قابك أنا كسو هذا horta bal muuqaalka la daawado intiina aan arkino bal muuqaalka la daawado gabadha hadda uu sheegayo si barafid uu sheegaya reer TikTok oo loo maadamid soo gala in dhaqan xumo noocan oo kale markay timaado laga wada dhiidiyo oo dhowr sidana si ma si dadka xataa ku dayan lahaa dadkan ay uga waantoobaan oo u arkaan in dhalinyaro Soomaaliyeed ay wax kale ka soo horjeedaan oo meesha aan la imaan karin iyo in dhaqanka noocaas sababta marka igu kaliftay in aan sida u hadlo oo aan dhaho dhalinyarada inuu keep going baan leeyahay سؤال فربنا بكومنتي اللي ودي وحالير والوزير وحالير هذا اللي يرد ماشي الظلمي وحكي عدل له رقم محمد عاد أقرب باقي له وعديه له ورسينا سما تقعنا معه أديك بقى كأم مسنبالي ما حيكون عاد بركة تاسين كي جوابية أرد الصومالية حماتها أنجا بركة أي وح شيء وصبحه شيء جالس أم حماتها هاو أم وناجها هاو أو شيء جالس بالشدة أفكار قبضته ولا صوت ده muuqaalkan waa markii ugu horeysay muuqaalkan horta soo baxay بقرتويو كيف داونا كروغا لا حنجو فانكانا كافر ماجو صاحبكيga darajo muuqaalkaas waxaa daawatay 500,000 waxaa loof saartay ku dhawaad 720,000 oo qof dhalinyaradii waxay u macaansadeen muuqaal labaad soo duubeen أفسكين وصوتاحي وأهادي ويابي dadku markuu kor ii qaaday soo iidaba socduu daalay warbalkaale yaa kaawaalay muuqaalka waxaa daawatay TikTok waxaa ka daawatay 1 million person oo qof oo Soomaali ah waxaa like saartay ku dhawaad 61,000 oo qof waay arrinka marka aad ka soo hadasho oo aad dhahdo wareede kuwani faraha waaba ka bixeen bal kuwa aan faraha ka bixin ee dambe ee ku dayan doona ilaa Soomaalidu waa Soomaali bareejaan la dhahaa Soomaali isku dayasho waa shaqadeeda war ku dayan doona ka qabo oo wax kan ka dhiibiya dhahay waxa lagu leeyahay wasiir hadaa u sheegayso oo aanaysid maxaa qaab bareefad wax u sheegi lahayd wasiir fuse ba ku raadinaysa waxaan ku iri wasiir horumarkooda ka xunta ba comment lagu soo qoriyaa oo clear ah hadaysan qaarba ku soo fariisan oo aysan ku dhihin waxa way hadaa u sheegaysid maxaa bareefad wax u sheegi lahayd waay bal bareefadka aadno dadkan inta qof ay flow gareysay iyo inta ayaga ay follow back dhaheen halkan uga jeedaan intaas oo kun oo qof ay flow gareeyeen oo asagina laba qof iyo wax la mid ama 6 qof ama 10 qof oo uu garanayo ama 12 qof oo uu garanayo follow back yiri xagee kala hadlaysaa ma lambarkooda waxay aan kugu soo dagaya ma ilaa qofka labada qof markuu TikTok markuu follow back u dhaho ba qoraalka uu gaaraya hadduu follow back u dhigin qoraalka ma gaaraya xagee u maraysaa halka qodobka ay dhig qodob labaad waxa lagu leeyahay bareefid ma waxa ugu sheegtay ayagu qaab bareefid u sameeyeen anoo magaalada dhex socdaan waxa arkay laba dhalinyaro meeshan wax dhaqanka Soomaalida ka baxsan ku sameeynaya mise intay soo duween oo soo qaadeen bi TikTok si public u soo dhigeen ilaa qofku markuu public wax soo dhigo ayad quraan ma qorayso in bareefid lagu jawaabay isaga public buu soo dhigay hadaa public la soo ku sacantahay way isaga dhaqankan iyo waxan foosho xun isaga soo dhigay public adiga hadaa public ugu jawaabtid waxa way qaladka adiga ma lihid laakiin hadaa dad magaalada joogo kale ama meel luuq qalaaga ku jiro hadaa aragtay dhaqan xumo sameeyo inaad telefoon dul istaagto ku dhahay wariyaa waxa wax fiican ma taas waa qalad way adiga maxaa public u keenaysaa markaas way iimaanaysaa dadkaas waa inaad si bareefad ugu sheegtaa laakiin dadka intii video ka soo duubeen ku tala galay oo public soo dhigay waxa uu leeyahay maxaa bareefad ugu sheegi weeyay horta dadka koobaad ee godka ku rida dhalinyarada waa dadkaas
وانا sababta aan keep going u leeyahay dadkaas kooka labo loof video 1 milyan videogaas saddexaad fiiri laba video waa ruutisay qolo kala dhalinyaro kala ku dayatay dhalinyaro kala dan video soo sameeyay ay madaxtooyo alla iga beere boqortooyo kii ifadawna kuruga la xanjo videogaas daawatay 1 milyan oo qof hadana daawaday looftiisana wama ziyaada konton kun 60 kun bay kor u dhaafaysaa ايش ويدينت مهم بقى waxay tahay Sheikh Mustafa Harun wacdi uu wacdinayo TikTok la soo dhigay hada aad raadisid marka soo heshid looft wax saaray waa waxan 100 qof gaarin ama 200 qof gaarin fiidiyogaas dhaqanka Soomaaliyeed ka durugsan oo diinta muslimnimada iyo wax walba ka durugsan waxa saartay 61 kun oo qof 50 kun oo qof 30 kun oo qof baa loof saartay loofkaas xagee u socdaa iga dhaadhicin maysid konton kun oo qof ama 60 kaas kun oo qof loofka ma fahansana oo iska saaran iga dhaadhicin maysid nin wax bartay baa ku jira nin aqoon leh baa ku jira qof caaqil ah ku jira qof media 10 sano joogay baa ku jira intaas oo qof baa ku jira iga dhaadhicin maysid macnaha dadkaas loofka waa iska saareen war Soomaaliya runta misku sheegnaa gar lillahi taqaana been laguma kalaamo adeer riyaalo aan waxaan leeyahay dhalinyaradaas inta loofka saa loo daba joogo qofkii ka dhiidiyay dhaha bal kuwani waaba tageene kuwa ku dayan doona ma taqaana dhihi doona dadkan way qarxeen barnaamijka u qarxay idinkana sameey hal idin buumbuuriye dadkii ka celin lahaa dhihi lahaa war wax kan wax wanaagsan ma war wax kan waxaan dhaqan u leeyna ma war wax kan wax diinta islaamku qabto ma oo xataa dadku markay arkaan dadkii wixii ka dhiidinayay waxay isleeyihiin inta yarta iimaan ku jirtay sharafkiisa sucad ku jira leernimada qaadayso dib uga degayaan way ummadii ka filcilisay wixii lagu kacay arkayaan orno barnaamijka hada sameeyna oo nagu la kacay bidahaya laakiin markii loo aamuso loo barnaamijka hal loo walaaqdo qofkii wuxuu sheegay barnaamijka waxa uu sheego idwiinis waxay ka dhigan tahay maanta uu dhunkasho iyo meelaha intaqaana la iska taataabtay maraysaay dharka intii la soo wada dhigto in meesha la soo wada istaago bay tagaysaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan leeyahay keep going in line art dadka sa u soo qarqaraya ee dhalinyarada ka soo horeeya ee NGO miya ma dad lacag gooniya lagu siibaa ma garanayo kulli dadka ka soo horeeya ee kula wasiir waxa bareefad ugu sheegay say bareefad ugu sheegay ayaga public wuxuu soo dhigtay anuu say bareefad ugu sheegay ayaga wuxuu bareefad buu ahaa maana public keenay mis ayaga public keenay muuqaalka dhaqan xumada ah ma ayaga public keenay misana public keenay su'aal shweydid ma taas wuxuu public bi ka soo dhigteen say bareefad lagu jawaabaa public ba lagu jawaabay maya wasiir waxa ku views ba ku oo views kan raadinaya maxay tahay wasiifa fi see u sifafi 1 milyan oo qof baa daawaday muuqaalkane see u sifafi maana fafi meesha hadii ugu boqot aniga waxa ka daawatay 200 qof 200 kun oo qof ama 100 kun oo qof ka daawatay ayagana meesha 1 milyan oo qof ka daawaday muuqaalkaas maana fafi mise muuqaalkaas markii shuruuba dar al u faafnaa oo dadka loofka saaray baa fafi marka Soomaaliyeed حالنا إلى قرآن كشوف كيرا وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دبعتك وما نعود إلا دبعتها سنة جماعة كسب سنة يسمعها. سيدو إلى قرآن كشوف كيري قوم مدوا اللبان إلا يجي متى أنا جماعة ضحوا بكسب مستان. keep going بان لي هاي. أنا قاعد دي أي نقطة أنا بني رأس أنا واحد كلاه الله نلوق عن كلاه الله يا سنة عن تيك توك جرو إنه شيء. سبب تاسنا وإدين شرحي. dad loof saarayo wixii iyagu fahansan ku talagalayo faafinaya hadaa ka soo hashid ku dhahay wasiir views ba ku raadinaysa waa sii faafinaysa waa video 1 milyan oo qof daawatay waa waliba wasiir waa sii faafinaysa waliba hadda youtube kan kuwa dhiyo waa sii faafinaysa kuwa dhahay waa video 1 milyan daawatay waa sii faafinaysa waliba midda kale waxay tahay maxaa bareefad ugu sheegay waayahay bareefadkaas wax isku sheegaynaaye hal soo qaawiyo waxa tani waaba yar tahay ciyaaro ka waaweyn hal la yimaado anagana luuqa waxaan kugu soo qoraynaa walaalayaal waxaas waa ceeb ka jooga hal la arko yaan la arkin hawshu waa soconaysaa marka bal waxaan suugaynaa 3 sano kadib dhaqanka Soomaalida ee social media sidoo ahaan doono hadalkan maanta inaan si fudud u dhageysanaysa baa laga yaabaa laakiin soo ballan hadalkaas maal aan maanteen qalbigiina ku soo wada dhici doona waa tahay hadii aan ugu cusub tahay subscribe to dhiirigelin like to codsi commentingna firkaan ugu wadaagaysa ma waxa tahay dadka aaminsan in barnaamijkan la sii faafiyay ma waxa tahay dadka aaminsan in barnaamijka wax loogu sheego
ma waxaa tahay dadka aaminsan kulley wixii adiga barnaamijkaaga uu yahay bal community nagula wadaag intaan barnaamij kulmi doono oo walaalkiin Zaki bin Xaajo idin leh siyaasi nabadiin iyo nuur kulantay jaw